Magacaygu waa Warsame Cabdiqaadir Axmed oo ku magac dheer Short King Warsame. Waxaan ahay arday dhigto jaamacad ku taala Canada, khaasatan gobolka Quebec ee magaalada Montreal. Jaamacadaas waxaa la dhahaa McGill University. Waxaan kaloo ahay content creator. Waxaan isticmaalaa aalada TikTok, YouTube, Instagram iyo Facebook. Waxaana kusoo galaa Short King Warsame. Intaanan Canada imaanin, waxaan ka imaaday xeryaha qaxootiga Cagadheera. Waxaanan ku imaaday scholarship oo la dhaho WUSC, World University Service of Canada. Ka duwanaanshaha aan dad kale ka duwanahay saameyn weyn ayay igu yeelatay, maadaama aan ahay nin dhirirkiisu yahay 114 centimeter, marka inches loo bedelana ay noqonayso 39. Midaas marka waxay sababtay inay meeshii aan maraba, for example, markaan joogo xeryaha qaxootiga, haddaan 2 tilaabo gurigeena kasoo baxo inay dadki yani dad waaweyn isku jira iyo carruur isugu jira qof walba inuu kusoo fiirinayo, marka laga yaabo inaysan ka ahayn hataa xumaan sometimes. Qofka laakiin markuu kusoo fiiriyo waa taqaanaa dee qof center of attention noqday, attention dhan ay kusoo jeesadeen, bulshada kusoo jeesan tahay, wuxuu dareemi karo. Markaas waxaa igu dhacday marmar qaar yani inaan isweydiiyo su'aalo ah, yani maxaa aniga kaliya la iga soo fiirinaya, maxaa loo fiirin lahaa in ninkaan ila socdo, ama maxaa loo fiirin lahaa in ninkaan meesha ka socdo kaliya ila soo fiirinaya. Midaas marka waxay igu sababtay inay su'aalo badan ay ka dhashaan, taasoo marka sababaysa hataa inay kalsoonidii ay meesha ku lunto. Waxaa imaanaysa ilan sheeko ah, haddii maanta aan soo baxo uu hebel ugu qoslo, berito suuqa maxaan seen ku aadaya, haddaan suuqiyo kasii daran bulshada ay badan tahay, haddaad sii aado waa lagu soo fiirinaya. Qaarkoodna hataa dhagay wax isugu sheegayaan. Marmar qaar waxaa arkaysaa hataa 2 qof oo isla socotay oo mid baa ku arkay midka kale hataa muusan ku arkin laga yaabo. Kii kale saaxiibkiisa dhabarka ka taawanaya wuxuu ku leeyahay fiiri yaa soo socda, fiiri gadaal fiiri. Aniga wixii dhan marka waan arkayaa kalsoonideeda ay jug weyn ku yeelanaysaa. Marka alxamdulilah, laakiin maanta hadda inta wax dhib uma arko, waan kasoo gudbay heerkaas. Marar badan waxaa jirtay oo qaabka dadka ay arkaan iyo qof kale hadal uu dhahay ay diri jireen, laakiin alxamdulilah nin isku qanacsana ahay maanta. Waa kan dee kaamirada hor taagan oo kula hadlaayo. Qofka markuu ka yara duwan yahay bulshada teeda kale, haddana si fiican dadka dhan ay wada fiirinayaan, waxyaalo badan ku dhalanaya, kalsoonida ka dhumayso. Marka social media inaan kusoo biiro waxay iga caawisay inaan kalsoonideydii dib u helo, inaan aqbalo in wax liiga sheego, inaysan i dhibin aragti qof bini'aadan kale oo iga aragsan yahay. For example, maanta laga yaabo adigaadan inay dhahdid inaad iga aaminsan, markaa aragtid inaad ninkan gaaban muxuu ahaa, anigana waxaan ku leeyahay ninka dheer muxuu ahaa. Marka kalsoonidaas inaan helo waxaad ka dambeysay social media inaan soo galo. Marka waxaan rabay inaan istijaabiyo, inaan yani ogolaan karo to allow myself inuu qof kale wax iga sheego anoona waxba ka qaban karin, yani inaysan i saameynin qof bini'aadan wax uu i dhahayo. Midaasna marka waxaa iga caawisay TikTok. Markaan soo galay waa ogeeda amaleeyaa sanadahaas TikTok waa lagu kacsanaa. TikTok aan soo dhigay, muuqaalkayga ugu horreeyay aan soo dhigay wuxuu ahaa half aan iska soo duubay, hataa waan xasuustaa. Attention badan muu soo jiidanin, laakiin muuqaalka ku xigay anigoo dhammaystiran markaan soo dhigay wuxuu helay 500,000 oo views. 500,000 oo isku jireen dad i dhiirigelinayo iyo dad i caaynayo, yani qof bini'aadan iskaga kaa dhigaya arkaysaa. Marka wixii social media marka waxay noqotay inaan usoo galo, inaan dadka tuso inay jiraan dad anigoo camal noocayga ah, taasoo marka iga caawisay inaan dadka Soomaalida ku wacyigeliyo inaan anagana bulshada ka mid nahay, inay na aqbalaan for who we are, yani acceptance camal aan ka raadinayn camal. Horta stereotype-ka laga aaminsan yahay mise waxa laga aaminsan yahay dadka baahiyaha gaarka qaba mise dadka aniga aan ka mid ahay waxaa waaye inaan yani qofka markuu ama baahiya qaar qabo ama uu bulshada ka duwan yahay inuusan horta waxba qabsan karin, ama inay English aan ku dhehe iga caawi, aan kugu dhehe ay tahay we are not people to be heard of, let alone to be seen. Dad inay la maqlaan ani in la ark ay tamaba nihinbo. So waxaa laga soo qaadaya guriga lee joogaysa adiga, martida hataa marka imaad in lagaa qariyaa laga yaabaa guriga qataar laguga soo xiro qolka qaar. Marka bulshadana marka zaaid ay yani ugu badan tahay bulshadana Soomaali dadka baahiyaha gaarka qaba inay la takooro ama yani inaysan loo arag dad wax qabsan karo, inaysan wax qabsan karin. So tusaale ahaan haddaan ku siiyo, aniga berigaan soo korayay, aan soo weynaynayay, waxay ahayd haddaan xasuusto sanadka 2008 xilligii dugsigayga hoose aan bilaabay primary-ga. Marka waxaa dhacday inaan gaaro xilli ama age oo aan rabo inaan iskuul aado. Waxaan arkayaa ardaydii carruurtii ila ekeed oo nursery aadayo, carruurtii ila ekeed iskuul aadayo, kuwii aniga ila dhashay oo xaafadda isla joogna oo class 1 iyo class 2 kala ah, iyo anigoo dugsiga markaan aadayna qof la igu daraayo oo yani anoosan qof i raacin dugsiga ma aadi karin.
iskuulna warkiis iska daa. Marka waxaa dhacday inay aan maalin aniga iyo yarkoo saaxiibkay ah is soo raacno oo aan dhaho niyow aniga ma garatay aniga iskuulaan rabaa inaan aado buug iyo qoday miiskan kasoo qaatay aabihiis ahaa marka buug iyo qalin aan soo qaadana waan soo baxnay waxaa imaaday marka iskuulka Upendo Primary School ilinkiisa imaanay galabley iyo subaxley la kala jiro waxaan xasuustaa kuwa galabta marka rabo inaan aado maadaama subaxda dugsi aan dhiganayn soo marka iskuulka ilbaabkiisa imaanay helmastii Allah u naxariistay waagaas hadda ma nool Allah u naxariistay joogay ayaa marka albaabka noo qabtay markaas wuxuu dhahay waraan inta u socotiin markaas waxaan rabnaa anaga in nala diiwaangeliyo iskuul nala diiwaangeliyo saas noo fiiri xariifka ila socday marka waa nin laba jibaarkayga laakiin waan isla egnaa marka xariifkii inuu soo qabtay buu dhahay adi kac ofiska aad waxaa lagu soo diiwaangeliyay adin wuxuu cunugan xaafaddu ugu yar yahay dhankan xaafadda dira is too young iskuul ma dhigan kara camal marka eedahan ninka kama yari isku facanaay wuxuu igu qiimeeyay sayskayga soo marka aabahaygana marka way ku adkaatay inuu iskuul igeeyo waagaas wuxuu lahaa yani wuxuu dhahay camal cunugayga waa liiga qoslayaa ama waxay iga dilayaan carruurta iga dilayaan mise carruurta iga foodeynaan it was true runtiisa wax bulshada ka jira waaye laakiin waxaan idin leeyahay aan dadka Soomaalida usoo bandhigaya maanta qofka hadduu baahiya qaar qabo ma ahan inuusan wax qabsan karin ma ahan inuu yahay qof dependent waxaa laga wadaa qof inuu qof dul saarnaado ma ahane aan iskiisa wax qabsan jirin tusaale maanta waxaa kaaga cad aniga ay arkaysid oo once upon a time guri la igu soo xiray ama dadka bulshada laga qirin jiray maanta inaan wadan shisheeye kaligay joogo laba boorso oo 23 kg xaafadeena aan kasoo qaatay aan meelaan dadka aqoonin qof islaamna iga horeynin inaan imaado aan wax ku dhigan karo qof i caawisaanan jirin alxamdulillah iskayga waxaan qabsanaya dadkaygaan la dhaqmaya bulshadeedaan la hadlaya marka waxaan u gudbinayaa inay waxyaalaha laga aaminsan yahay dadka baahiyaha qaarka qaba laga soo tago uu noqdo dhaqan xun oo laga soo tegay horta familka aniga aan ka dhashay aniga bis ayaa xaaladda nolol oo qof gaaban ah inta ila dhalatay dhan waa average height qoyskaygana alxamdulillah xaaladdeeda way aqbaleen walaalo jecel ayaan haystay oo hataa markaan banaanka aadna carruurta iga celin jiray cunugii isoo fiiriyay la dagaali jiray walaalahayga way i jeclaayeen alxamdulillah familkaygana they were proud of me maysan jecleen qof inuu yani si xun ii fiiriyo mise wax iga sheego dadka anigoo kala ah ama xaaladaheeda la nool ama baahiya gaar qabo fursado badan ay u baahayin ayaa jira haba ugu horeysa mid ah qoyskay ka bilaabata cunuga in la tuso inuu yahay part of the family aanan lagu faquuqin xaaladda uu markaas la nool yahay lianna haddii cunuga maanta oo familkiisaba uu dareensiiyey inuu nin gaaban yahay ama nin baahiyo gaar qabo ama daryeel uusan helin kalsoonidiisa ayaa halkaas ku baaba'ayso weligiisna wuxuu aaminsanaanayaa inuusan wax baran karin oo cunuga inuusan waxba qabsan karin soo marka waxay ka bilaabataa in qoyska oo ah inuu ka helo acceptance inay familkiisa aqbalaan midda kale aan rabo hadda inaan soo gudbiyo waxa kale u baahan waxaa waaye caafimaadka ka horeyso markii ugu horeysay aniga aan ogaado inaan asaanahay waa maraan soo aqliyeystay wixii ahaye ma aqoonin dwarfism aan qabaa hadda ayada naftirkeeda waxay u kala baxdaa intaasoo kunoo nooc marka bulshadeena dhanka caafimaadka xogaa way ka liidataa ninkii gaaban adi nin gaaban leedahay they don't care what kind of dwarfism you have waxba kama gelin nin gaaban uu yahay marka waxaan jeclaan lahaa dowladda ama hay-adaha caafimaadka inay diagnosis lagu sameeyo cunuga si uu ogaado type of dwarfism uu qabo aniga ahaan gaar ahaan hadda waxaan qabaa marka inta imaadan ogaaday waxaan qabaa achondroplasia asagana kala duwan qaar waxaa jira lafaha nooc kala noqdaan marka waxay u baahan yihiin caafimaadkii basic horta in laga dhiso oo cunuga conditionka uu qabo la ogaado diagnosis lagu sameeyo taas waxay ka caawinaysaa qaabkii uu hadhow yani asaga bulshada oo la dhaqmi lahaa iyo what things he needs to avoid in order to be in good shape or in order to be like caafimaadkiisa waxba uga dhimin